al-shabaab in ka badan 10 sano ayay si aan kala har lahayn u daadinayaan dhiigga ummadda Soomaaliyeed, culumo, caamo, ciroole iyo cunug iyagoo aanan u aaba yeelin. Waxa ay sheegtaan inay u gargaarayaan diinta Ilaahay, lana dagaalamayaan gaalo iyo gaala raacyo. Laakiin taa cagsigeeda waxa ay si joogto ah u beegsadaan bulshada Soomaaliyeed ee Muslimka ah, goobaha cibaadada, goobaha ganacsiga, meelaha la isugu yimaado, waddooyinka waaweyn, weliba xilliyada ay mashquulka yihiin si ay ugu daadiyaan dhiigga ugu badan ee awoodaan. Intaasi kuma ekaane waxa ay si joogto ah u beegsadaan indhaha ummadda, culummada Soomaaliyeed ee waaweyn, siba culummada ku dhiirata inay khaladaadkooda ay sheegaan, iyagoo u dila qaabka ugu naxdinta badan si ay u cabsi geliyaan kuwa ka dambeeya oo ayna waxba uga sheegin. 2011 bishii 12aad al-shabaab waxa ay si arxan darro ah ugu dileen magaalada Boosaaso Dr. Axmed Xaaji Cabdiraxmaan oo ah caalim weyn oo bulshada Soomaaliyeed si weyn looga yaqaanay. لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت اللهم فاشهد. دكتور أحمد markii la dilayay waxa uu soomanaa maalinka Taasuuca ee bisha barakaysan ee Muharram, waxauna ka soo baxay salaada fajar. 15kii bishii 2013 waxay al-shabaab mar kale ku dhiiradeen dilka mid ka mid ah culummada ugu waaweyn geeska Afrika, si weynna looga yaqaanay caalamka Islaamka, laguna tilmaamo aabbaha dacwadda Islaamka ee geeska Afrika. waa Sheekh Cabdulqaadir Nuur Faarax, isagoo hortaagan Allah oo ku jira salaada casar. waxaad sawiran kartaan heerka ay ka gaareen ku xadgudubka maxaarimta Ilaahay. noloshiisa oo dhan Sheekh Cabdulqaadir waxa uu ku dhammaystay faafinta diinta Islaamka iyo goobaha cilmiga, waxaana ka aflaxay aqoontiisa oo ka faa'iidaysatay dad aad u fara badan oo maanta ku sugan daafaha caalamka. maalmo ka hor al-shabaab waxa ay Kismaayo ku qarxiyeen Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed oo ka mid ahaa culummada waaweyn ee Soomaaliyeed ee naftooda iyo maalkooda u huray faafinta dacwadda Islaamka. Sheekh Cabdinaasir oo si weyn looga garanaya geyiga Soomaaliyeed gaar ahaan gobollada waqooyi, ayaa ka mid ahaa culummada si toosa uga digta fikirka al-shabaab ee ku dhisan gaalaysiinta iyo daadinta dhiigga ummadda Soomaaliyeed. sheekhu waxa uu dadaal geliyey sidii dhallinta looga fogayn lahaa fikradaha guracan. saddexdan culumo ee ku baxay gacanta al-shabaab waxay ahaayeen saaxiibbo dhow oo ku saaxiibay u adeegidda dacwadda Islaamka. waxaad la socotaan 14kii Oktoobar 2017 al-shabaab waxa ay magaalada Muqdisho ka geysteen gumaadkii ugu baahsanaa oo kaga tegay bulshada Soomaaliyeed een aysan hilmaami doonin. waxa ay si maalinlaa uga geystaan magaalada Muqdisho qaraxyo aan kala sooc lahayn. mar haddii siyaasiyiintu ku fashilmeen xal u helidda mushkiladdan, miyaysan mudnayn bulshada Soomaaliyeed inay isweydiiso ilaa goorma ayaan ku jiri karnaa gumaadkan baahsan? waa su'aal da'weyn oo u baahan ka jawaabid.